بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد dhammaan ummadda islaamka meel ay joogto waxaan idin leeyahay rabadaan kariim. saaka waxaynu ku sugannahay rabadaan koodeedii ayaynu soomanahay insha allahu tacaala. idil ahaantiinba ilaahay caafimaad inagu soo wada gaarsiiyey. waxaanse aan la hubin in ilaahay subxaanahu watacaala caafimaad inoogu wada dhammayn doono, waynu kaga faa'iidaysan doonno caafimaad insha allahu tacaala. dhammaan daawadayaasha kanaalka SAA Software waxaanu insha allahu tacaala halkan idinka soo gudbinaynaa casharkeenii 6aad ee kooraska HTML insha allahu tacaala. casharkeenii 6aad waxaynu ku dhigan doonaa insha allahu tacaala sidii aan u samayn lahayn radio box ama radio button. kii aanu shalay toole maxay tahay koorkiisa soo saxanaynay maxay tahay koorkiisa inaga yar qaldamay, iyo sidoo kale maxay tahay text box sidaynu u samaynayno, iyo maxay tahay order list inaynu samayno, ama maxay tahay list data inaynu samayno insha allahu tacaala. casharkeena ayaynu si toos u guda galaynaa. daawasho wanaagsan. ugu horeyn waxaynu soo kicinaynaa insha allahu tacaala softwarekeeni yaraa maxay tahay HTML ama Notepad++. kadib waxaan halkan ayaan barnaamij ku qoraynaa. shalay toole casharkaynu dhigano wuxuu ahaa intaas buttonada sida loo soo gelinayo. bartaas buttonada hoostooda ayaan leeyahay tag. kadib waxaan leeyahay waxaynu ku horeynaynaa text boxka ayaan ku horeynaynaa insha allahu tacaala. kadib waxaan leeyahay kii shalay toole koorkiisu inaga yar qaldamay ayaynu insha allahu tacaala ugu dambaysiinaa order list. halkan markaa waxaan leeyahay input type aan leeyahay wax galaan oo type nooceedu ay tahay equal ay la mid tahay double rotation text meel qoraal la gelin karo. dabeedna sida ayaan ugu soo xidhayaa. markaasi waxa weeye halkaa waxaan leeyahay kadib waxaan leeyahay save ayaan leeyahay. kadibna waxaan leeyahay irangare bal aan arko. kolley halkan wax badan baan dib ugu kordhin doonaa oo aan ku tusi doonaa insha allahu tacaala, laakiin intaanan waxba kale ku kordhin inaan ku tuso ayaan jeclaa. waxa weeye meel banaana wax lagu qori karo weeye. marka halkan break lineta inoogu sii kordhisay aada inoogu kala go-aan. hoos baynu usii kala jarnay. waxaynu rabnaa haddaba inaynu halkan name geli ama user geli. sidoo kalena halkaa dhexe waxaad ku aragtaa intaa dhexe intaan waxba lagu qorin enter your name ama enter your password oo ku qoran ayaad arkaysaa. kaasna waynu ku samayn doonaa insha allahu tacaala. horta magaca yare hore ee ku tilmaamaya halkan waxa gelaya. halkan ayaan leenahay name. waxaan leenahay enter name ama user name baan leenahay. user name ayaan leeyahay. dabeedna labada dhibcood. halkanna sidoo kale waxaan leeyahay placeholder si aan ugu sameeyo. waxaan leeyahay equal rotation waxaad ku dhex wax ka soo dhex saartaa halkaa text boxka enter your name username enter your username. enter your username ayaan leeyahay. allahumma salli calaa maxamed. kadib waxaan leenahay save ama control s. kadib waa kaa
username ayaad aragtaa. Dabeedna placeholderka aan leenahay placeholderku equal hanala mid noqdo double rotation qoraalkaas kasoo dhex muuqdo enter your username. wuxuu ka dhex muuqdo haddii marka wax ku qorayo uu iska baaba'aya, wax jira maaha, waa mana awaal, waa quraan mana awaala, laakiin ku caddaynayeen godka la gelinayo. waxaa sidoo kale mid kale ayaan ku darsanaya, waxaan leeyahay password baan leeyahay password and double rotation, waxaan leeyahay input, waxaan leeyahay input meel waxa la gelin karo oo type nooceedu ay tahay, waxa la gelinayaa ay tahay text equal ay la mid tahay double rotation text. placeholderkeeduna equal uu la mid yahay double rotation enter your password. dabeedna tag ayaan kusoo xidhayaa. kadib waxaan leeyahay control s ama save tan yar ayaan leeyahay. kadib waxaan leeyahay refresh, waad aragtaa iyadana, laakiin waxaan rabaa inay hoos dhigmaan. waxaan isticmaalaynaa break linekii ama break downkii, br ayaan leeyahay. kadib waxaan leeyahay sidaas ayaan leeyahay. wakaa wada jeeda inay hoos dhigmeen. sidaas ayay soo hoos dhigmeen. waxaanu kala rabnaa inaynu ku darsano halkan radio button inaan ku darsano ayaan rabnaa. waxaan leenahay gender ayaan halkan leenahay, gender ayaan leenahay. kadib waxaan leenahay tag furan. dabeedna waxaan leeyahay input typekiisu uu yahay equal uu yahay radio, namekiisuna uu yahay la mid yahay gender, valuega inoo hayaana uu yahay baan leenahay valuega inoo hayaana uu yahay baan leenahay equal mile. markaas waxaan leenahay halkaa ayaan hoos uga degayaa. kadib waxaan leeyahay level for equal la mid noqdo levelkaasi. markaas waxaynu gelinaynaa meel ayaan gelinaynaa. kadib waxaan leenahay sidaa. dabeedna waxaan leeyahay halkaa mile ayaan gelinayaa. dabeedna levelkii ayaan soo xidhayaa. levelkii ayaan halkaasi kusoo xidhayaa. sidoo kale waxaan soo gelinayaa input kale. maxay ahayd mailkii baan sameeyey, femalekii meeshii laga select garanayay. input type noociisa ay tahay equal uu la mid yahay double rotation radio, waayahay. nameka oo hayaa namekiisuna uu yahay equal uu la mid yahay double rotation gender, valuega oo inoo hayaana la mid yahay female ayaan leeyahay. kadib halkaas ayaan leeyahay sidaa. kadib hoos ayaan uga degayaa. waxaan furanayaa taa kale. kadib waxaan leeyahay level for equal la mid noqdo aan leenahay double rotation female.
female, then waxaan leeyahay soo xidh, kadib halka ayaan ku qorayaa female, kadibna levelkii ayaan soo xidhayaa. Save ayaan leeyahay, kadib waxaan leeyahay run ayaan leeyahay. Sida ku muuqata iminka waa kan. Waxaynu rabnaa inaynu kan hoos dhigno. Break line-ka waxaynu ka gelinaynaa password-ka ayaynu ka gelinaynaa. halka password-ka sareysa ayaan waxaan leeyahay tag from PR tag xidhan, kadib waa hoos isoos dhigaya dhammaantiiba. waad ujeedaa iminka uu isoos dhigay waa tan. haddaad male tahay meelkaa dooranaysaa genderkaaga, haddii kalena waxaad dooranaysaa female ayaad dooranaysaa. sidoo kale waxaanu sameynaynaa order list ayaynu sameynaynaa. halkan waxaynu leenahay tag from option, dadna tageen dadna cabaarba noo soo degina. waxaan leenahay soo xidh optionkii. ayaan leenahay halkan hoose ayaynu waxaan leenahay markaasi ayaan waxaanu leenahay option baynu leenahay, dadna tageen xidhanaa. kadib waxaan leenahay waxaynu leenahay car, kadibna optionkii ayaynu soo xidhaynaa. option mid kale ayaan leenahay. waxaan leenahay tag option, kadib tag ayaan xidhanay. waxaan leenahay motor ayaan leenahay, kadib sidaa ayaan leenahay parameter. optionkii ayaynu soo xidhaynaa. optionkii ayaan soo xidhaynaa. optionkii ayaan soo xidhaynaa. waxaan leenahay option kale, kadib waxaan leenahay optionkii noo soo xidh. waxaan leenahay 3 ayaan leenahay, kadib waxaan leenahay waxaad noo soo xidhaa. kadib waxaan leenahay dabeedna markaas waxaynu leenahay markaas safe ayaynu leenahay. waxaan leenahay run ayaynu leenahay. order listigii waa kaas sidaad ujeedo iminka. sidaas ayuu noqonayaa oo istaba dhigmayaa. laakiin kani wuxuu noqon doonaa halkani OL kaynu sameynay iminka. optionka waxba inaga qaldan. halkan waxaan leenahay halkana list ayaynu leenahay. halkan sidoo kale waxaan leenahay halkanna waxaynu leenahay sidaas oo kale. halkan waxaynu leenahay list. waxaanu sameynaynaa waa list ayuu ahaa. marka halka waa inaynu list ku bedelaa. aynu qaladnay selectionkii baynu ku qaladnay. halka OL ayaan leeyahay, kadib safe ayaan leeyahay. sidaa markay noqoto waxaan leeyahay markaasi refresh. marka nidaamkaas ayuu samaysmayaa.
order listigii. Sidoo kale haddana halkaa unorder unorder wuxuu noqonayaa unorder haddaan nidhaahno waxuu noqonayaa 1 2 3 gan buu ka bedelayaa, dhibco yaryar ayuu ka dhigayaa. Marka waxaan iminka casharkeenan ku dambeynay inaynu sameyno foomamka aad baynu ugu baahannahay, kuwaas oo kale maxay genderka iyo text boxyadan iyo maxay selection listigaas oo kale aad baynu ugu baahannahay. Markaas waxa weeye insha Allah taala intaas ayuu ku eegyahay casharkeenan maanta. intaan ku kulmi doono casharka xiga insha Allah taala waxaan idinku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatu. waxaan ku rajeynayaa insha Allah taala inaad practicalka aadna samayso insha Allah.